madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi gudoomiyaha xisbiga xubnaha golaha wasiirada mas'uuliyiinta kale ee gobolka iyo heer degmo iyo dhammaan madax dhaqameedka sharafta leh ee reer Boorama ama gobolka Awdal guud ahaantii waxaan run ahaantii ka mahad celinayaa soo dhaweyntii sharafta lahayd ee maanta madaxweynaha iyo waftigiisa soo dhaweyseen waxaana runtii farxad ah xukuumaddu iyadoo bilow ah waxa la yidhi marka jiilaalka laga soo baxo roobka koowaad da'o waxaa la yidhaahdaa gorogoro roobku markuu da'o ee weli aanu doogna soo saarin gorogoraa la yidhaahdaayo xooluhu maaf dhigaane way socdaanoo way yaacaan waxaan ku faraxsanahay inaynu xilligii gorogorada ku xasilay marka reerku saan u degay ee roobku degay ee la xusgooyana waxaan rajaynayaa inaynu haddii Ilaahay dhaahdo barwaaqo geli doono insha Allah ballanqaadka waxa loo galaa in la fuliyo waxaanan ku faraxsanahay inuu madaxweyne inoo yahay madaxweyne ballantiisa ka soo baxa oo cahdiga uu dadkiisa la galo ay gubto ay damaqdo ay culays ku hayso uu ka fakaro sidii uu u gudan lahaa wixii uu dadkiisa ugu ballan qaaday markii uu codka ka doonayay halkan madaxweynuhu uu yimi reer Awdal cod bay ayuu weydiistay isagoo musharaxa si gobonnimo leh bay uga jawaabeen waxaan filayaa gobonnimadii madaxweynahana maanta inay reer Awdal ka hayaan si guudna siyaasadda xukuumaddu laba wax bay ku fadhidaa ka koowaad waa in midnimada iyo wadajirka Soomaaliland la ilaaliyo waa wadajir ka labaadna waa waxqabad in wixii meel looga raadin karo ee dunida aynu ka heli karnana laga doono hadday maalgashatii hadday mucaawino tahay waxa aynu inagu leenahay aynu haysanana si fiican loo maamulo oo dabadeetana dadka si cadaalada loogu qaybiyo oo loo gaarsiiyo ajandaha labaad ee xukuumadda oo ajandaha ugu weyn isaguna waxa weeyaan waa ajandaha isbeddelku maaha in xilalka dadka loo kala bedelo madaxweyne taga madaxweyne cusub yimaado wasiir taga wasiir cusub yimaado laakiin isbeddelka dhabtahay waxa weeyaan waa ka dawladnimadeena wax ka bedela madaxweynuhu kaasuu ka shaqeynayaa iyo xukuumaddiisuna tusaale yaroo koobanna haddaan idin siiyo xukuumaddan waxay noqon doontaa haddii Ilaahay dhaahdo xukuumaddii isbeddelkaasi waxa uu ku bilaabmay waxa la yiraahdo security justice reform isbeddelka arrimaha amniga la xiriira cadaaladda laba daqiiqan waxa macnaheedu yahay doonaya inaan sira dul taago macnaheedu ma aha tirin ciidamo la tirinayo kaliya macnaheedu waxa weeye in la helo dawlad iyo nidaam garsoor iyo nidaam dawladeed iyo nidaam cadaaladeed oo ay dadku aaminaan oo shacbigu aamino macnaheedu waxa weeye qofka muwaadinka ah marka uu dacwad u baahdo ee uu doonayo maxkamad inuu tago isaga oo ku kalsoon maxkamadda uu tagaya inay cadaalad fali doonto isaga oo ku kalsoon inaan cid looga hiilin doonin isaga oo ku kalsoon in nidaam sharci lagula dhaqmi doono uu dacwadiisa maxkamadda la tagi doono dhibaatooyin fara badan oo wadankeena ka jira waxaan aaminsanahay dawladnimada iyo dadku waxa ka dhaxeeya waa contract social contract baa la yiraahdaa contractkaasi waxa weeye dawladdu inay cadaalad fasho qof aan dambi gelin aanay iska xidhin laba qof oo muwaadiniin haddii ay wax dhex maraan si cadaalad loogu garsooro qofka aan in dacwad qof kale loogu qaado aan lagu dhibin
oo aan lagu dhibaataynin imika waxa dhacda laga yaabaa maxkamadaheena kale inay hooyo balada hadalka aad ugu fiirsada inay hooyo miskiinada oo maxkamadda dacwadi kaga jirto ay subax kasta maxkamadda ku soo kalaado iyadoo aan natiijo ka gaadhin oo huquuqda hayso hooyadaasi ooyeysa inay gurigeedii dadana ku noqoto waxaan rabnaa haddii Ilaahay dhaahdo isbeddelkaasi inuu hooyada gaadho insha Allah haddii Ilaahay dhaahdo waxaanan hubaa siyaasadda xukuumadda ee madaxweyne Cabdiraxmaan uu hogaaminayo in isbeddelka aydun arki doontaan isaga oo ficila oo hooyadaasi ay raali tahay oo ay og tahay haday maxkamadda tagtay in cadaalad ay ka helayso booliiskeenu dadka uu la saaxiib yahay dadka dambi aan lahayn aan lagu qaadin aan la iskala takoorin walaaltinimada iyo wada jirku labada eray ee xisbiga halku dhiga u haay imikana xukuumadda xildhiga halku dhiga u ah ee la yiraahdo wada jir iyo wax qabad wada jirka xoog badan waxaanu ku imanayaa dariiqa cadaaladda iyo dawladnimada iyo in dadku dawladnimada ay aaminaan taasoo madaxweynuhu ka shaqeynaya dawladdiisu ay ka shaqeynaysaa shacbiga iyo idinka iyo gobol kastana aan rabnaa inay ku gacan qabtaan oo ay ku taageeraan